kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Galmudug isla markaana ku dhaqan wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan London kulankaasi oo lagu sagootinayay xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankaasi ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay isugu jireen odayaal siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda jaaliyadda Galmudug hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan gogashan quruxda badan ee ay ku fadiyeen gabdhaha reer Galmudug ee quruxda badan ee halkan caawa fadhiya waxay kugu soo dhaweynayaan gacmo furan saacadatu xildhibaan adiga iyo wafdiga kula socda ee uu ka mid yahay wasiirkii hore mudan Cabdiweli Jaamac uu ka mid yahay afukaata Khaliif uu ka mid yahay duqa magaalada Hobyo uu ka mid yahay injineer Geedi iyo dhammaan odayaasha halkan fadhiya waxaan si gaar ah ugu salaameynaa anoo codka jaaliyadda Galmudug ku hadlaya codka guddiga ku hadlaya codka gabdhaha halkan fadhiya quruxda badan ku hadlaya salaan diiran oo ku salaysan sii sagootintaada iyo waxqabadkii iyo karaamadii iyo sharafkii iyo cizigii iyo hawlihii adkaa ee aad u dhabar adeegtay ee annaguna aan kaaga harnay halkan aan fadhino adiguna aad tiri waxaan wax ka soo qaban doonaa dhulkii waa kaaga mahadinaynaa waana kugu soo dhaweynay waana kugu sii sagootineynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa xafladan qiimaha iyo qaayaha leh sagootinta maanta aad qabanqaabayseen jaaliyadda UK haddaad tihiin haweenka qaasatan haweenka ayaa aad u qabanqaabaysay sharaftan iyo qiimahan iyo isku keenkan raggana kaalintoodii ka qayb qaateen gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogahayaha iyana waxaan u rajaynayaa inay hawsha loo doortay ee bilow tahay ay sii wadi doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo waa in salaamay gabdhaha wiilasha hooyooyinka waxaan kaloo gooni u salaamayaa xildhibaanka Cabdullaahi Jaamac Waale haweenka qabanqaabiyaasha kulligiinba waa idin wada salaamay dadku waxbay maanta oo dhan wada farayaan xildhibaanka intaasoo kale ma qaadi karo already dadkii waxaa laga rabaa madaxdii ayaga inay ka soo dalbadaan dawladda wixii budget ah Galmudug waxaan faraynaa dadkeedu inay heshiiyaan ogaadaanna inay meel weyn ka galayaan Soomaaliya hadday heshiiyaan inay macno u leedahay dalka Soomaaliyeed haddii gobol walba isxil qaabo oo khilaafaad ka bixiyo waxaan helaynaa Soomaali wada heshiis dalku kama maarmo in la heshiiyo maxaa la isu indha tiraya xafladan sagootisa ee lagu sagootinayay xildhibaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Jaamac oo caawa halkan lagu dhignay xaflad aad iyo aad u qiimo badan run ahaantii muxuu ka soo qayb galeen reer Galmudug oo dhan hadday lahaayeen hooyooyin iyo hadday lahaayeen gabdho iyo hadday lahaayeen wiilalba sagootinta fiican ayaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan kale u hambalyeynayaa intii ka soo qayb gashay waxaan kale u hambalyeynayaa anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Galmudug ee UK waxaan u hambalyeynayaa haddana waxaan meeshan ku sagootinaynay xildhibaankeenna sharafta leh dawladda federaalka ka tirsan Cabdullaahi Jaamac Seed oon halkaan maanta ku caleema saarnay koofidii Jaamac Seed saarnay shaalkii u surnay aan la dardaaranay ayaan halkaan ku sagootinaynay dhammaan waxaan salaamaynaa oo sagootinaynaa maareeyaha Hobyo degmada Hobyo iyo xildhibaanka sharafta leh ayaan xafladan u qabanay oo ku sagootinaynaa dhammaanna waxaan salaamayaa jaaliyadda Galmudug meel kasta oo adduunka ka jirto waxaan u mahadcelinayaa guddiga jaaliyadda UK reer Galmudug gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gabdhaha Galmudug ee qabanqaabiyey xafladan waxaan idinla dardaarmayaa midnimada ku dadaala hal farihi fool ma dhaqdo taariikhda ninkii carabka ahaa ee looxa halka ushaa u dhiibay qofka oo saa inta loo jabiyey markii la isku duubay ulihiina la jabin waayey markaad isku duuban tihiin baad micno leedihiin waxa dadka qaybinaya iyo waxa dadka midaynaya waxa badan inta midaynaysa dadka waa ku faraxsanahay xafladan quruxda badan oo la soo agaasimay aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo anoo ku hadlaya magaca ganacsatada UK ee jaalidan waxaan u hambaleynayaa gudoomiyaha Hobyo
aadaan kugu soo dhaweynayaa waxqabadkaaga inaad dadaashid ayaan rabaa meesha inaad kasii wadid waxaan ka mid ah dadka investmentiga gashanaya hobyo oo ugu horeeyo anigoo waliba guddigayga ay horkacayaan insha Allah arrimahaas soo marka waxaan ku dadaalaynaa sidii meeshaas ay noogu noqon lahayd meel dhisan oo nabad ah waxaan kula dardaarmayaa dadka dhan inay gacmaha isqabsadaan dariska iyo kulli meeshii noqoto meel nabad ah barwaaqana lagu horseedo kulligeen wada guurisana ku jirnaa oo dadka dhan way wada socdaan qof walba wuxuu rajaynayaa hoteeladiisa inuu ka dhisto beachka Hobyo Beach marka dhammaanna waxaan leeyahay dadka way idin hambalyeynaya waxaana kamid ah dadka investmentiga gashada ugu horeeyo hambalyo aad leeyahay dhamaantiin Yusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London